الإنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. الإنسان لو أطلقته متأملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. walaalayaal, waxaynu ku dhex jirnay duruusteennii ramadaaniyada aheeday. waxaa noo soo gebagaboobaya darsigeenna 28aad aynu kusoo gebagabayneynaa qaybihii maaragtay ramadaanka aynu ka soo hadalnay. waxaa inoogu dambeeyey sakaatulfitrigi ayaa noogu dambeeyey. haddii halkaas markii laga tago waxaa la tegi doonaa insha allahu tacaala dadkii muslimiinta ahay oo soonaay inay ciidaystaan. ciidda la yidhaahda ciidulfitri ayaa maaragtay ahaanu gelaynaa mar dhow haddii alla yidhaahdo. hadde ciiddaasu waxaa weeye waxay ka mid tahay ciidaha oo muslimiintu ay iska leeyihiin oo mashaahiirta ayay ka mid yihiin. ciidulfitri iyo ciidul adxaa oo ciid weynta iyaduna maaragtay bisha dilxija 10keeda ah. haatan waxaanu soo qaadanaynaa oona wax ka soo qaadanaynaa annaga oo maaragtay u bogaadinayna ummadda muslimiinta inay maaragtay markaan soo gaarayaan ciiddii barakaysneeday oo markaasi farxaddii bishii ramadaan oo lasoo soomay iyo jaa-isadii ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisa uu siinayey la soo gaaray. waxa weeye ciiddaas waxaa la yidhaha ciidulfitri ayaa la dhahaa. waxaa ciidulfitri loogu bixiyey waa ciid iyadoo la soonaay ayaa la afurayaa. ayadoo la soonaay oo cuntadu ay xaaraam aheeday in wax la cuno ayaa waxa weeye cuntadii ayaa xalaal noqonaysa. markaasaa waxaa la yidhi ciidulfitri ayaa la yidhi. ciiddaas ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu bedelay jaahiliyadii waxyaabihii jiri jirayoo nayruuskii iyo mehrajaanadii iyo waxyaabo maaragtay ciidaa ah oo markaasi baadil lagu soo ijtimaaco oo lagu soo kulmo macaasi lagu sameeyo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ciidaha ka noogu bedelay. kuwaanu waxaa weeye kuwa khayr lagu soo kulmaayo, shacaa'irta dadka muslimiinta la muujinayo, farxad la muujinayo. ilaahay subxaanahu watacaala addoomanka camalkoodii kugu waaweynayo la aqbalay maaragtay ayaa loo dabaaldegayaa. maxaa yeele hadda ciiddan ciidulfitriga waxaa weeye camal weyn amba rugni weyn oo min arkaan alislaam ah ayaa la gutay. markii rugnigaas la gutay, farxaddiisii iyo jaa-isadiisii abaalmarintiisii ilaahay subxaanahu watacaala uu bixinayey ayaa ku soo xigsatay. maxaa yeele qofku haddii waxa weeye camal uu qabto oo shaqeeyo, hadduu yoomiyan uu ku shaqeeyo, asbuuciyan hadduu ku shaqeeyo, hadduu shahriyan uu ku shaqeeyo, haddii waxa weeye camalka uu guto oo shaqadii uu dhammeeyo laga doonayey, qofka markaasi waxa weeye maaliga ah oo shaqadaas iskale oo loo shaqaynayo, markii waqtigaas la gaaro waxaa laga fishaa ama laga rajeeyaa inuu maaragtay uu bixiyo jaa-isooyinka ama ujradii ou dadka kula heshiiyey. ujradaas marka uu bixinayo asaguna waa ku faraxsan yahay inuu dadkii shaqadii markay guteen oo asagana howshiisii loo qabtay in markaasi wax fiicanoo abaalmarina dadkiina maaragtay xoolahoodii ujradoodii inuu bixiyo ayuu ku faraxsan yahay. qofka waxa weeye soo shaqeeyey asaguna wuxuu ku faraxsan yahay inuu maaragtay ujradiisa uu qaato oo maalintaas ay u noqoto farxad ay u noqoto. ilaahay subxaanahu watacaala camal weyn oo maaragtay baraka leh oo khayr badan bil aad iyo aad
وخير بدن أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلهي ونصودا يوم رسوا قاضني بشاس أيا وحوي ضدك مسلمين تاهاي وإلهي نادديس أقبلي وفرلك إلهي وكفرل يلاقاتي مركي أي دميين أيا وحي النقطي عيدي النقطي فرحدي النقطي فرحداسنا وحوي رب العزة إلهي سبحانه وتعالى الصومين أيي مارتي هي أبال مرنتيسي أيي فلانايان الله سبحانه وتعالى أدومن كيسا عمل كاس كصوبحي إنه أبال مريو ومارتي إلهي سبحانه وتعالى وفرحت قليو أيو الله سبحانه وتعالى إساقو نبحنايا مركا جائسة دانو وعيدة ومد الله سبحانه وتعالى وبحنايو ومد آن مخلوق أو سنبحنين وحينت مدي عيداسو رقن وين أو أركان الإسلام كمده أو صون كيه بعد جيس أي تمدي عيدان كلا ضدك مسلمين تإسكليهين أيضنا سدا صو كلوي ووحي إيمان إسا أيضنا أعماشي مالتي أمر رقن وجودن به أركان الإسلام أو حج كأهاي أيضا اللي سوق تي هو بدن أو يتعب نبي عليه الصلاة والسلام وتوضعي حج كوده جهاد لا قتال فيه وعوي الدجال مارتيا وجهاد وأن الوجود دجالمين حجك أعماشي سنوات أرتين دبك هذا إيه سدا أي تاي مركي وحوي أرنتاس للصومري أو وحوي جهاد كاس لا قتال فيه للصوق علي أيا وحى بعد جيسة تمدي إن عيد أي نقطه أو فرحد مارتيا أي تماضو وإلهي سبحانه وتعالى الدومن كيسي حاجين تايو مارتيا حجيدة هاي إنه أبال مريو انت كلون أيقنا حجين أي عيد النقطه أيقنا نفحات كاس أي لو ذاقان أيا وحى تمد مركز عيد كلا تمدي لبدا عيد مركه وهيكو آدايان لبا مناسبة أو آد وين أو مركزي شعائرتا مسلمين تا كود وين كمده أو هدنا وحوي فرائل أو مركزي فرلياش لاسكو فرل يلي أركان تي أو مارتا إسلام كا أو مدول برقن من أركان الإسلام أي تاي بعد كده أي عيد الله يلي مركا وحوي عيد مالين فرحاديد وي إلهي سبحانه وتعالى واتيو لهي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون مركا بركي إلهي وكور ما يسونك وحوي بركي صونك الله دمايو وها إيمانيسا إلهي سبحانه وتعالى إن لوينيو ولتكبروا الله على ما هداكم تاس وحوي وتكبيرة اللي يرادو تكبيرة عيد الفطر اللي يرادو إلهينا سبحانه وتعالى واتولا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قفك مركي زكاة الفطر اسكبحيو أو اسكو ظاهرو وحوي ربي جيس أيو حصايا حصكاس وحوي وتكبيرة اللي تكبيرة عيد الفطر اللي يراه تكبيرة مركة عيد الفطر مركان aan maaragtay aan tagayno oo ciid noo noqonayso waxay ka bilaabanaysaa markii waxa weeye Ramadaan uu dhamaado oo galabta ugu dambaysa Ramadaan laga gudbee bishii Shawaal loo jeedo ayaa waxa imaanaya ciidul fitr ayaa la galay ciidul fitriga marka waxay leedahay shaqaa'ir badan iska leedahay ee ciida kaligeed oo mujarradkeeda ma ahan waxa shaqaa'irteeda ugu waaweyn kamida takbiirta waxa ku xiga salaada ayaa ku xigta marka labadaasuna waxa weeye labadii lagu sagootinayay bishii barakaysneed oo Ramadaan ayaa lagu sagootinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo malaa'iktiisa waxay tawdiicinayaan oo sagootinayaan oo maaragtay ku faanayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomankiisa malaa'ikta hatta ugu faanaya dadka markay saa'imiin ahaayeen maalintaas ay ciideysanayaan ayagoo mandar qurxan iyo wax walba oo farxada isu taaniyahay ayaa Ilaahay malaa'iktiisa u tusaaya markaas oo ka warhama ayuu leeyahay marka waa abaal marintii markaas maalintii la qaadanayo waaye marka takbiirka ciidul fitriga takbiirkiisa waxa takbiir oo mutlaq ayaa leeyahay ciidan kale oo ciidul adhaana takbiirkeeda waxa leeyahay takbiir oo muqayyad ayaa la dhahaa takbiirka mutlaqa iyo midka muqayyadka maxay ku kala duwan yihiin takbiirka mutlaqa waxa weeye waa takbiir aan ku xireen waqti ku xireen habeenkii loo jeedo bisha soonfur loo jeedo ama se Shawaal loo jeedo waxa la bilaabaya takbiira la bilaabaya
takbiirta ayaa la bilaabaya. takbiirtu waa iska mashhuur, qof aan takbiir aqoonin ma jirto. marka takbiirkaas waxaa la yidhaha takbiir mutlaq ahaa la dhahaa. waxa weeye waxaa lagu takbiirsanayaa guryaha idoo la joogaa la takbiirsanayaa, idoo wadooyinka la maraya la takbiirsanayaa, ayadoo masaajida lagu jiraa la takbiirsanayaa, ayadoo suuqyaalka la joogaa la takbiirsanayaa. takbiirtu kaliya ma ahan sida bacdu naas ay isleeyihiin maalinta ciidda la gelaayo oo maaragtay subaxda ciidda in markaasi waxa weeye la takbiirsado. arintu markaasi saas ma ahan. waxaa la rabaa in maaragtay haddii loo jeedo bisha shawaal qof kastaba meesha uu joogo ayuu takbiirta ka bilaabayaa. allahu akbar allahu akbar allahu akbar, saasuu takbiirta u wadaaya. marka takbiirta waxay ka bilaabanaysaa waqtigaas oo maaragtay qoraxdii ay dhacday bishii shawaal loo jeeday ayaa takbiirta laga bilaabayaa. qof walba waqti kuma qeydne, waa wadayaa. qofku intuu wadi karo wadi karaa ayuu wadayaa. shacaa'irtaas meel walba in laga maqlo ayaa loo baahan yahay. beri intii salaada subax marka laga gudbo oo laga gelayo salaada ciidul fitriga laga gelayo, salaada markii la galo waxa weeye wixii ka dambeeya takbiirtaas waa dhammaatay. marka waxay jiraysaa habeenka loo jeedo bisha shawaal loo jeedo ilaa biri salaada ciidul fitriga laga dukanayo, intaas ayay tahay. marka waxaa la yidhaha takbiirkaas takbiir mursal ayaa la dhahaa. takbiirkan muqayadka la yidhaahdo oo ciidda kaleo ciid weynta hadda kolley ayadana munaasabadeeda waa noo imaanaysaahe haddii ilaahay yidhaahdo, ayada waxaa la takbiirkaas muqayad ayaa la dhahaa. wuxuu ku qaydan yahay khalfa salawaat, salaadaha gadaashooda. asaguna wuxuu gelayaa dadka maaragtay aan xujayda ahaynin maalinta maaragtay oo yoomu carafa subaxeeda, salaada subax markii la dukado ayaa la bilaabaa. salaada subaxa oo yoomu carafa ayaa ciidul adxaa takbiirteeda la bilaabayaa. salaad kasta oo la dukada bacdigeedaa la takbiirsanayaa, waa la wadayaa. waxay soconaysaa markaasi 5 maalmooday soconaysaa. maalinta oo waxa weeye yoomu carafaha ah oo 9ka bishu ay tahay, iyo maalinta 10ka ay tahay oo ciidi ay maaragtay ciidul adxaa la joogo, iyo maaragtay 3 maalmood ayaa mutashriiqa. intaas 5taas maalmood ayaa takbiirtaas oo iyaduna muqayadka ah oo ciidul adxaa ayay soconaysaa. marka salaadaha bacdigooda ayay ku qaydan tahay. laakiin salaada ciidan hadda aanu gelayno oo waxa weeye ciid bisha maaragtay soonfur ama ciidul fitriga, ayada waxa weeye markii bisha loo jeedo oo bisha shawaal ay dhalato ayaa la bilaabayaa. meel kasta ayaana lagu takbiirsanayaa. shardi ma ahan in masaajidka la isugu yimaado. salaadaha xataa salaadaha faralka shaacirtu wuxuu salaad kasta oo la dukado sunaba xatay ha ahaatee waa la takbiirsanayaa. markaas waxay tegaysaa in maaragtay bisha markii ay dhalato maaragtay ilaa biri salaada ciida laga gelayo, intaas ayaa la takbiirsanayaa. shacaa'irta marka waxa weeye sidaasay noo noqonaysaa. waxaa la rabaa maalmahaas in maaragtay ahlada iyo awlaadda iyo laga farxiyo oo maaragtay loo siyaadiyo dacaamka, sadaqada la badiyo, dadka muslimiinta laga farxiyo ayaa loo baahan yahay. laysu tahniyeeyo, khayrka laysugu tahniyeeyo, sharta laga leexdo. dadku waxa weeye marxabayn iyo qalbi wanaagsan oo dhiiba inay isku qaabilaan ayadoo muslimiinta mar walba looga baahan yahay. arrintaas ayaa loo baahan yahay. markaasi waxa weeye rasuulkan wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam man axyaa leylatay alciidayn u dhahay lam yamut qalbuhu yowma tamuutu lquluub. labada ciidood qofkii nooleeya inta ay jiraan nooleeya qalbigiisu ma dhimanayo maalinta dadka qulubtooda ay dhimanayso. qalbiga ayaa ku noolaanaya. farxado in la muujiyaa la rabaa, dadka loo naxariisto, awlaadda iyo ahalka maalmahaas maalintaas ciidda in waxa weeye ahalkaaga haddaad heli kartid waxaad sii jirta wax ka badan inaad siisaa la rabaa. waxaad sii jirtay wax ka badan inaad siiso. farxado la sameeyo, wax laysu tahniyeeyo, hadiyooyin laysu diro. dadka muslimiinta saasaa laga doonayaa, qalbiga laysu dahiro. maxay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay tahaadow taxaabu, wax isu hadiyeeye waad isjeclaanaysaane. watasaafaxuu yadhabu lqilu cankum, sacabkana isgeliyoo gacanta isi saara si waxa weeye xaqdiga iyo xasadku idinka tagaan. hadiyada dadka muslimiinta la siinaayo waxay keenaysaa maxabbay keenaysaa. dadka muslimiinta wax loo hadiyeeyaa la rabaa.
sida la isku jeclaalahay ilaan maxabada waxa weeye shay loo baahan yahay oo la iska dalbaayo waaye marka maxabo la-aanteed iimaanba ma jiro marka waxaa la rabaa dadka kuwa fuqarada ah kuwa masaakiinta ah in wax la siiyo si ay islaamka u jeclaadaan dadka muslimiinta xuqdad aysan ugu qaadin say isu jeclaadaan ayaga laftirkoodu in maalintaas la muujiyo islaamka shacaa'irtiisa ee wanaagiisa ayaa nolo kaga baahan yahay marka insha allahu tacaala ciidana waxaanu ku qaabilaynaa takbiirta iyo salaada iyo sadaqada iyo farxadda iyo tahniyada intaasoo dhan ayaan insha allahu tacaala aan ku qaabilaynaa waxaana isu dardaarmaynaa khayr ayaan isu dardaarmaynaa halkaasna waxaa weeye duruusteeni ramadaaniyadeed iyo tawaabicdeedii ayaanu kusoo gebagabaynaynaa hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu